soo dhawaada dhammaan asxaabta maanta waxaan halkan kaga hadli doonaa fiideo aad in badan iga codsateen oo aynu ku faaqidi doono wadiiqada ugu fudud ee aad ku baran karto cryptada ama crypto roadmap. wadiiqadani waa wadiiqaan anigu u malaynayo yaasiin ahaan inay tahay ta ugu fudud ee qofka beginnerkii uu ku baran karo cryptocurrency-ga. Fiideoga dhammaadkiisa waxa ku jira war farxad leh oo doonayay inaan idinla wadaago markaa dhammayso fiideoga saad uga ogaato warkaasi wuxuu yahay. Waxaan u kala qaybiyey wadiiqadan 8 tallaabo oo ay tahay inaad u qaado siday u kala horeeyaan. Tallaabada koowaad ee aad qaadaysaa waxa weeyaan inaad wax ka barato maxay tahay cryptocurrency. waxyaabaha baran doonto waxa kamid ah coinska u waaweyn Bitcoin, Ethereum, kuwaasaad baran doontaa iyo siday u shaqeeyaan. waxaad baran doontaa oo iyaduna aad muhiim u ah blockchain. blockchain-ku suu shaqeeyo waa maxay blockchain-ku waxyaabahaas oo dhan baad tallaabada koowaad ku baran doontaa. markaad intaa barato tallaabada labaad ayaad qaadi doontaa oo kaa caawinaysa inaad fahanto waxyaabaha maaragtay nolol maalmeedka markaad cryptada ku jirto aad crypto isticmaalayso ka hor imanaya oo ah inaad barato wuxuu wallet yahay, inaad barato sida loo secure gareeyo ama amnigiisa loo sugo wallet-kaaga, inaad barato exchange-ku muxuu yahay, exchange-ku wuxuu kaaga baahan yahay waxyaabahaas oo dhan, inaad barato waa maxay mining-ku, inaad barato waa maxay gas fee-gu. waxaan oo dhan waa wax kaa hor imanaya markaad cryptada insha Allah aad day to day u samayso aad ula macaamisho suuqa day to day. markaad labada qaybood markaa ka soo baxdo tallaabada saddexaad ee aad qaadaysaa waxa weeyaan inaad kala barato qaybaha ay cryptocurrency-gu u kala baxdo. waa inaad barato muxuu yahay coin, muxuu yahay token, maxay tahay NFT, waa maxay DeFi-gu. waxyaabaha inaad barato ayaad stepka saddexaad ama tallaabada saddexaad insha Allah ku baran doontaa. qaybta saddexaad markaad ka soo dhamaato waxaad u iman doontaa qaybta afraad oo kaa caawin doonta inaad wax ka barato market dynamics-ka oo ay ka mid tahay supply and demand-ka oo saameynaya price-ku inuu kor u kaco kor hoosna u dhaco, trends-ka ama waxyaabaha market-ka trend-ka ah ee cusub, volatility-ga waa cryptadu waa suuq iska waalan oo volatile weeyaan. volatility-ga iyo waxyaabaha sababa inaad wax ka barato halkaa markaad taagantahay sees aad u fiican baa kuu dhisan. qaybta shanaad waxay kaa caawinaysaa inaad seeska aad saarto labankii koobaad ama jaajuurkii koobaad. qaybta shanaad waxaad markaa aad wax ka baran doontaa white papersku waxay yihiin. white paperada coinska ugu caansan baad wax ka akhriyi doontaa oo aad ka baran doontaa siday u shaqeeyaan. waxa kaloo baran doontaa oo aad dib u darasi doontaa market cycleski ama historic trendskii soo dhacay. wixii dee berigii hore cusbaa ee soo dhacay ama market ku sameeyey market cycleski price actionski berigaas oo dhan ayaad wax ka baran doontaa oo dib u study garayn doontaa. marka qaybta shanaad markaad dhamayso waxaad tahay barta markaad taagan tahay waxaad tahay qof ka garanaya cryptada wax badan ama wax badani uga baxsan yihiin cryptada, laakiin weli ma tihid qof diyaar u ah inuu invest garaysto cryptada waayo waxba kamaad baran investment-ka iyo sida uu shaqeeyo. tallaabada lixaad waxaad ku baranaysaa sida wax loo invest garaysto. conceptska ka midka ah waxa ka mid ah risk management-kii inaad samayn karto, inaad market analysis-kii samayn karto, inaad samayn karto technical analysis iyo fundamental market analysis labadaba. waayo labadaba waa muhiim, waa inaad wax ka barato. inaad samaysan karto investment goals. waxyaabahaas oo dhan ayuu kaa caawinayaa inaad ka barato qaybta lixaad. markaad qaybta lixaad wax ka soo barato sida wax loo invest garaysto waxaad diyaar u tahay qaybta toddobaad oo ah inaad exercise-kii samayso ama aad wixii aad soo baratay bal tijaabiso. marka qaybta toddobaad waxaad samayn doontaa wallet baad samaysan doontaa, exchange account baad samaysan doontaa, waxaanad samayn doontaa lacag aad ka maarmi karto. imika halkaa aad baan ugu celceliyaa lacag aad ka maarmi karto ayaad ku shubi doontaa exchange account-kaaga. markaa ayaad qaybta 8aad u geli doontaa. qaybta 8aad oo ah inaad study ku samayso cryptocurrency-ga doonaysa inaad invest garaysato.
ma bitcoin baad doonaysaa ma ethereum baad doonaysaa inaad saadaalin karto waa inaad isku daydo price xagu tagayo oo aad markaa adigoo saadaashaada raacaya aad investment ka samayso oo aad sidaa ku invest garayso mar labaadna uu ku celinaya waxaad ku shubaysaa lacag aad ka maarmi karto lacag aad u baahan tahay weligaa ha iskaga shubin crypto iska iskaan badan tahay waxa laga yaabaa inta hore barbaradka teed khibradda ka helayso inaad trade aad qaadato khasaare kugu yimaado marka lacag aad adigu ka maarmi karto uun ku shubo sideedaa qodob ayaan isleeyahay waa wadiiqada ugu fudud ee qofku ku baran karo kuna gaari karo inuu isku filnaado isagu marka la joogo cryptocurrency-ga warka farxadda maanta idila share garaynaya wuxuu yahay inaan imika gacanta ku hayo course gebigiisaba soo koobaya cryptocurrency-ga oo 8 qodob iyo waxyaabo kala u baahan tahayba ay ku jiraan oo insha Allah aan soo deyn doono dhawaan waxaan sidoo kale idin diyaariyay Discord server aad kula kulmi karto dad adigoo kala oo doonaya inay cryptada meel sare ka gaaraan igu weydiin karto su'aalaha ka hayso cryptada insha Allah waxaanad kala socon doontaa marka course-ka insha Allah aan shaaciyo ilaahdo course-ki waa diyaar Discord-kan insha Allah soo dhigi doona marka linkiga waxaan idinku share gareyn doonaa xagga hoose ee description-ka waxa laga faa'iideysto imika Discord-ku waa diyaar waad ku beeri kartaa maantadan waad ku beeri kartaa marka imika fiidiyoga joojiso Discord-ka ku soo beer fiidiyoga dhamaysa marka intaas maanta ku soo koobaya hadii aad u malaynayso inuu fiidiyogani anfacayo qof walaalkaaya ama saaxiibkaaya please la share gare adiguna like-ta noogu dhufo saan dad badan oo u gaadhno uga faa'iideysta fiidiyogan wixii aad aragtay hayso igula wadaag comment-ka insha Allah maanta intaas ku soo koobaya maalin wacan